Gabayga Koofil. Sayidku wuxuu gabaygan tiriyey markii ay Daraawiishtu guul weyn ka gaadheen Dagaalkii Dulmadooba ee 1913 halkaas oo lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska ee xilligaas, Richard Corfield, oo Soomaalidu u tiqiin Koofil. Qisada gabayga Dagaalkii Dulmadooba. Sannadkii 1913 waxaa sii xoogaystay loolanka u dhexeeyey Daraawiishta oo uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo Gumaysigii Ingiriiska. Ingiriisku wuxuu sameeyey ciidan gaar ah oo la odhan jiray Somaliland Camel Corps, waxaana hogaaminayay nin aad u kibir badnaa oo la odhan jiray Richard Corfield ama Koofil. Koofil wuxuu ahaa nin aad u dhiiran laakiin ay ku jirto isla weyni. Madaxdii Ingiriiska ee berbera joogtay waxay Koofil fartay inaanu Daraawiishta weerarin ee uu iska ilaaliyo, laakiin Koofil wuxuu damcay inuu magac ku helo jabinta Daraawiishta. Ciidamada Daraawiishta oo aad u tiro badnaa, niyad ahaanna u dhisnaa, ayaa soo weeraray deegaanka Dulmadooba, koonfur-bari magaalada Burco. Koofil wuxuu go'aansaday inuu wajaho Daraawiishta isagoo watay ciidan aad uga yar kan Daraawiishta. Dagaalku wuxuu ahaa mid aad u qadhaadh. Daraawiishtu waxay adeegsadeen xeelado dagaal oo heer sare ah, iyagoo ku hareereeyey ciidankii Koofil meel bannaan ah. Muddo kooban gudaheed, ciidankii Ingiriiska waa la jebiyey. Intii dagaalku socday, xabbad ayaa Koofil kaga dhacday madaxa, halkaas ayuuna ku dhintay. Dhimashada Koofil waxay noqotay guul weyn oo u soo hoyatay Daraawiishta iyo jab weyn oo soo gaadhay Ingiriiska, waayo Koofil wuxuu ahaa astaan u taagan awoodda Ingiriiska ee dhulkaas. Ujeeddada gabayga, markii Sayid Maxamed maqlay in Koofil la dilay, aad buu ugu farxay, wuxuuna tiriyey gabaygan caanka ah. Gabaygu ma aha oo kaliya faan, laakiin waa fariin loo dhiibayo qof dhintay. Sayidku wuxuu gabayga kula hadlayaa Koofil-kii dhintay. Wuxuu u sheegayaa in marka uu aakhiro tago jahannamo, uu kula kulmi doono saaxiibadiisii hore ee cadaabta ku jiray. Sayidku wuxuu Koofil farayaa inuu u waramo dadkaas dhintay oo uu u sheego wixii dhacay. Wuxuu leeyahay, Koofilow, marka aad aakhiro tagto ee aad saaxiibadaa aragto, u sheeg in Daraawiishtu guulaysatay, u sheeg in Ingiriis jabay, u sheeg in maydkaagii ay waraabe iyo dugaag cunayaan. Gabaygan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah gabayada ugu farshaxansan suugaanta Soomaalida, sababtoo ah qaabka warbixinta aakhiro loo dirayo waa habdhismeed suugaaneed aad u sarreeya oo uu sayidku kaga hadlayay guushiisa iyo jabka cadowgiisa. Gabaygu wuxuu u dhignaa sidan: adaa Koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu wadhay, jimic la'aaneeda jahannamo la geeyow haddaad aakhiro u jiido nimankii jannow kacay, haddaad jidinka soo weydo jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii weydo sida jeeroo baydgaab, haddaad jiifka ku caddayso nimankii jiciirada ahaa, jumlad ka hadayso jidhkaaga iyo uunku hadduu kala jidboodaayo, haddaad juuqdan gabaydiyo jawaab ka waayayso waa su'aal aan kuu jeediye, jawaabka keenoo dheh. Daraawiish jarka qaararkood jowda ka oogo dheh, jibhadaha u kici iyo fardaha gulufyo jeedsho dheh, jigta wareegta iyo dhiigga sida jilabta looyda dheh, maydkoodu jeerada dibadduu jiifay degelkiis dheh, jidhku niman aan waayay iyo jarasho aan reebnay dheh, kolka ay jidbada diintu timid jinamadii roor dheh, Ingiriis jabyo wuxuu ku jabay jilibkii beereed dheh, jayskii uu watay iyo baabuur jaayfa u diid dheh, jig iyo tiiraanyo iyo jab iyo hoog raac dheh, waxa dunida joogaba hadduu jilbaha taagaayo, uu jidbadoon u shuusitiyo, jeebka ka ilaasho inaan jannada uun looga hadhin, jinina sow maaha. Anasigii jannuu tegey haddaad jannada soo weydo jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii weydo, hadday jumlad ahaan jahannamo u wada jiido, haddaad waayeelkii jiray jumlad ka hadayso sida jeeroo baydgaab, haddaad jiifka ku caddayso waraabaha jowlsan iyo hadduu joogu kugu waasho, haddaad juuqdan gabaydaydayo jawaab ka waayayso waa su'aal aan kuu jeediye, jawaabka keenoo dheh.